waxa ay si wada jir ah u dhaafiyeen nafta hooyadii dhashay oo labadooda kaliya ifka ka fiirsanaysay. waa sheeko naxdin leh oo ka dhacday gobolka Togdheer ee Jamhuuriyadda Somaliland. intaan u gudagalin sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad na soo booqato waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto maasan. dhacdadan oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacday gobolka Togdheer deegaan ka tirsan ayaa waxa ay tahay in laba wiil ay dileen hooyadii dhashay. labadan wiil ayaa hooyadan waxa ay nafta ku dhaafiyeen tuuray sidii ay ula dhacayeen. hooyadan oo lagu magacaabi jiray Allah u naxariistay Aamino Yuusuf Ismaaciil oo da ahayd ayaa nafta waxa dhaafiyay labadii wiil ee ifka ku lahayd. labadan wiil ayaa markii ay dilkan geysteen waxa ay hooyadan u qaadeen goobo caafimaad si ay baaritaan ugu sameeyaan oo ay u ogaadaan in nafta wali ay ku jirto ama ay nafta ka baxday. balse ciidanka ammaanka gaar ahaan booliska gobolka Togdheer oo arintan ka war helay ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen eedeysanayaashii dilkan geystay. waxay ciidanka booliska Somaliland sheegeen in markiiba ay gacanta ku soo dhigeen labadan dambiile ee dhacdadan naxdinta leh geystay. waxayse sheegeen in labadan nin ee eedeysanayaasha ah ee hooyada nafta dhaafiyay ay si degdeg ah u geyn doonaan maxkamadda. dhinaca kale ciidanka booliska Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxa ay labadan nin maxkamadda uga codsadeen in qisaas lagu fuliyo oo la toogto labadaba maadaama ay nafta dhaafiyeen hooyadii dhashay oo dunidan keentay. sidoo kale hooyadan ayaa labadan wiil ee ifka dhaafiyay saacado ka hor dunida ku lahayd oo wax kale oo awlaad ah dunidan uma saarneen. dhacdadan ayaa waxa ay noqotay dhacdo naxdin leh. waxaa saacadihii la soo dhaafay aad looga hadalhayay deegaanada Somaliland gaar ahaan deegaanada gobolka Togdheer. waxaanu arintaasi booliska u soo xiray laba ay dhashay gabadhaas islaantaas marxuumada ah ee la oran jiray Aamino Yuusuf Ismaaciil. laba wiil oo dhashay ayaa kiiskaas loo xiray. markii aanu si guda galay dadkii maydhay waxay noo sheegeen 7 tuurood. markii aanu kiiska warkaa helay booliiskan u diray aniga booliiska u diray baaritaan bay booliisku soo sameeyeen. waxaan maanta ka warbixinaynaa dil ka dhacay tuulada Habeedle taariikhdu markay ahayd 23 bishii 12 2024. dilkaasoo loo geystay gabadha la yiraahdo Aamino Yuusuf Ismaaciil. markii aanu kiiska warkaa helay booliiskan u diray aniga booliiska u diray baaritaan bay booliisku soo sameeyeen. taliyaha saldhigga booliiska ee saldhigga dhexe ayaa hogaaminayay kiiska. markii baaritaan aanu galay waxaanu dadkii goobjoog gaar wax ka qornay waxaanu arintaasi booliisku u soo xiray laba ay dhashay gabadhaas islaantaas marxuumada ah ee la oran jiray Aamino Yuusuf Ismaaciil. laba wiil oo dhashay ayaa kiiskaas loo xiray. markii aanu si guda galay dadkii maydhay waxay noo sheegeen 7 tuurood ku dhaceen oo 6 dumar ah. waxa kaloo muxuu ahaa loo cadeeyay in ay muxuu ahaa cid kale goobta aan joogin. ereyada booliisku ka soo qoreen ninka wax dilay ee waliba gacanta lahaa ee islaantu dhashay wuxuu yidhi anaana ugu dambeeyay nolosheeda geeridana ugu dambeeyay. ereyadaas muxuu laga soo qoray kiiska waxaanu geynay feerskii baanu ku rumaan garaynay gabagabadina waan xorgoynay maxkamadda awood wala insha Allah bidmillah karin si kiiska loo dhageysto insha Allah bidmillah karim. waana muxuu ahaa kiisaska booliisku ku guuleysteen riskiga ay muxuu ahaa yahay. booliiska aad iyo aad baan u amaanayaa gobolka Togdheer gaar ahaan taliyaha saldhigga dhexe oo hogaaminaya kiiskaas ayaan amaan u soo jeedinaya bogaadin.